marka koowaad waxaan rabaa inaan u mahad celiyo hay'adda maareynta musiibooyinka oo howlwadeenadeedii iyo madaxdeediiba ee halkan joogaan gudoomiye ku-xigeenkiina uu garabkayga taagan yahay Dr. Axmed. waxaan rabaa inaan uga mahad celiyo bogaadiyo shaqada ayadoo hay'addu 2 bilood iyo wax yar jirta in shaqooyinkii gurmadka gargaarka iyo shaqadii gurmadka degdega ah ee loo sameeyay inay si hufan ay u shaqaynayaan. hay'addaana markii la soo celinayay oo wasaaraddu ay soo jeedisay arrintaas waxaan uga gol lahayn inaan shaqadan ummadoo dhan wada qaban karin in lagu ogaado institution gaar ah. runtii waxayna ka soo baxeen oo ay u shaqaynayaan si ka baxsan awooddooda. waan u mahad celinaynaa ummadda Soomaaliyeed oo dhanna waxaan rabnaa inaan ugu baaqno inay shaqadooda u fududeeyaan lalana shaqeeyo ciidanka amniga ugu horeeyo isbitaallada hadda dhaawacyada la geeyey dhammaantood inay xogta ay hayaan hay'addan ku soo wareejiyaan wixii xog ah oo bukaanada iyo dadka dhintay ee loo geeyey dhammaan in si dadka ehelada oo soo wacaya call centerskan meelahan wicitaanka si looga ogaado xogta dadka soo wacaya. xogta hadday kala fiirsan tahay lama ogaanayo. marka waxaan ku baaqaynaa in isbitaalladu ay gacan siiyaan hay'adda. sidoo kale shacabka Soomaaliyeed waxaan uga mahad celinaynaa ayaguna gurmadkii shalay iyo maantay iyo habeen horeba ay fidiyeen oo ay u fidiyeen dadkii ku dhibaatooday qaraxii argagixisadu ay soo maleegtay 29 bisha Oktoobar 2022 ka dhacay isgoyska Soobe. waxaan leenahay aad baad u mahadsantihiin shirkadaha ilaa hadda ku deeqay taakulaynta dadka dhaawacyada iyo dowladda Soomaaliyeed xukuumadda xalay aad ogeydeen inay lacag 1 milyan ay ugu deeqday hawshan. dhammaan waa mahadsantihiin. welina fari kama qodna runtii dadka Soomaaliyeedna hadday iskaalmeeyaan oo istaakuleeyaan iyaga isku filan. uma baahna in diyaarada dibadda looga soo diro. uma baahna in ummad kale loo gacan taagto. waa lagu filan yahay waana la arkay in lagu filan yahay. dhalinyarada Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho deganna iyagana reer Muqdishoana iyo dadka Muqdisho ku noolba ayaguna heeriyadii argagixisada inay iska rogeen oo shalay ilaa xalay ay gurmad xoogan bixiyeen iyadana runtii waxay calaamad kale oo muujinaysa in halganka lagula jiro argagixisada uu miro dhalay oo dadkii Soomaaliyeed oo dhan awal isqarin jiray ay hadda banaanka iskeeneen shirkadaha ha ahaadaan ama shacab ha ahaadaan. marka aad iyo aad baa u mahadsantihiin. waxaan rabnaa fariinta halkaan ka dirayna ay tahay argagixisadii way jabeen wayna sii nafbaxayaan. waxaana muuqata in ay shalay iyo daraadba ayadoo goob weyn ay luminayeen inay kaga argoosteen shacabka Soomaaliyeed. sidaas awgeed shacabka gobolka Banaadir ee magaalada Muqdisho ku nool waxaan leenahay hal feejignaado marka koowaad. marka labaadna argagixisadu guryaha iyo xaafadaha ayay ku dhuumanaysaa intay wax abaabulayso. ha loo wada qaato ha loo wada gurmado. ninka qofkii argagixiso lagu tuhmo in hay'adaha amniga gacanta laga soo saaro la soo qabto xitaa maahan in la soo sheegay in la qabto sida tuugada loo qabto kale in iyagana loo qabto. waana ka daran yihiin tuuga alaabta xadaya oo xaafaduhu ay ceyrsadaan waxaa ka daran midkaa nafta goynaya. marka isagay tahayba in la ceyrsadaba oo la qabto wax awoodaha weyn uu leeyahay ma leh sida kaaraan ka dhacday wiigii hore in xaafadahoo dhanna ay sidaas sameeyaan iyo degmooyinkoo dhan. argagixisaduna runtii aad bay u daba xun tahay. waa arxan la'aanteeda diin la'aantooda bini aadam xumadooda waxay ka muuqatay wixii daraad ay ku sameeyeen horeyna u samayn jireen isgoyska Soobe iyo dadkii masaakiinta ah halkaas ku shaqaysanayay kuwii marayay kuwii danaha kale lahaa oo ay ku carab baxeen wayna sheegteen. waxaan islahayn way ka xishoon doonaan kuwa hore ay ka xishoodeen oo ay soo abaabuleen inta la xumaadeen ficilkoodii. runtii waxaa ayaan darro ah in argagixisadii ay ku faantay ay sheegatay dadkii ay qurgooyeen cunugii yarka ah hooyadiis ay dileen gabadhii yarayd odaygii ay ehladoodii dileen waalidka iyo gabdhaha meesha ku baaba'ay ayay ku faaneen argagixisadii. meeshaas marka waxaa nooga muuqda dagaalka dowladda ku jirana inuu xaq yahay dagaalka shacabka Soomaaliyeed uu ku jirana ay ku jiraanna
inuu xaq yahay waayo ciidan iyo dowlad keliya cadow kuma ahan ummadda iyo diinteeda iyo hantideedii iyo guryaheedii iyo buundooyinkoodii iyo baabuurtoodii iyo kulli ayay cadow ku yihiin meeshaas marka fursad fiican baa ka bannaan gadoodkan ummaddu hadda ay gadoodsan tahay oo argagixisada ay ka gadoodsan tahay maalin kasta dhiig lama shubi karo maalin kasta lama ooyi karo maalin kasta meel burburtay lama nadiifin karo laakiin waxaan awoodnaa qofka wax kharribaya intuusan wax kharribin ka hor in la qabto in la soo sheego taasaa ka khasaaraya dadka marka Soomaaliyeed meel ay joogaanba si khasaaruhu u yaraado argagixisada nafla caariga manaxaha diinlaawaha xaafadaha jooga in la soo sheego way runtii way bilaabatay la xalay heedaa amniga waxaan ka maqlaynay inay bilaabatay dhaqdhaqaaq noocaas oo dadku qofkii ay ka shakiyaan adiga qasab ma qofka lama dilayo hadduu noqon waayo waxa weeye waa la soo daynaya dawlad baa meesha joogta sidoodoo kale lama ahan laakiin qofkii laga shakiyo in la soo qabto qofkii laga shakiyo in la soo wargeliyo heedaha amniga qofkii laga shakiyo in tallaabo cad laga qaado maxaa kaa galaydii la iska yaqaanay inay meesha aan soo gabagabayno wax yar baa haray magaalooyinka waaweyn oo laga nadiifiyo duurkii waaba laga nadiifinayaa magaalooyinka waaweyn oo laga nadiifiyo aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa mar labaad hay'adda maareynta musiibooyinka qaybtooda howlgallada degdegta waxaa weeye shaqo fiican baa socota waana runtii waxaad moodaa inaan dowlad ahaanna loo soo xoogeysanayo institutioniskeeniina iyo dadkeenniina inay maaragtay soo kacayaan waxaa keliya noo dhiman dhibaato waa barannay sida looga jawaabo dhibaatadu intaysan dhicin ka hor sida looga hortago taasaa noo dhiman taasna hadda dariiqeedii waa la wadaa taasaanan ku dardaarmaynaa shacabka muqdisho iyo ummadda soomaaliyeed oo dhanba aad iyo aad baa u mahadsantihiin ka wasaarad ahaan wasaaradda arrimaha guduhu maanta way yimaadeen halkaan iyagoo dhammaystiran shaqaalihii howlwadeennadii madaxdii kala duwanaa agaasimayaashii kala duwanaa dhiigna waa bixinayaan wixii kaloo contributionna wasaarad ahaan $5,000 ayaa lagu soo talagalay inaan uga mid noqonno gurmadka shaqaalaha iyo laga aruuriyo aad iyo aad baa u mahadsantihiin